magaalada Hargeysa ayaa waxaa maanta heshiis wada shaqeyneed ku kala saxeexday shirkadda caymiska ee Takaful Horn of Africa iyo ururka ay ku midoobeen dhakhaatiirta caalamiga ah ee KBG ee xaruntiisa guud tahay dalka Malaysia. Munaasabada goobta uu heshiisku ka dhacayay iyo furitaanka xafiiska cusub ee KBG waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Somaliland, mas'uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda caymiska ee Takaful iyo saraakiil ka socday ururka dhakhaatiirta ee KBG. waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadda caymiska ee Takaful Cumar Xaaji Xuseen Cumar Xaashi waxaanu ka warbixiyay adeegyada ay soo kordhisay KBG. runtii Takaful ahaan iyo KBG Malaysia ugu tagnay wayna soo dhaweeyeen wayna casuumeen. arinta maanta halkan ku soo bandhigaynaa waxa weeyaan hospitaaladaas oo ku yaala dalka Malaysia, dalka Indonesia, dalka Bangladesh iyo Australia. afarta wadanba kuwa ugu badan ee Malaysia ku leeyihiin waxa aanu iclaaminaynaa ama ogeysiinaynaa dhammaan dadka degan mandaqadan bariga Afrika ee ugu horeeyaan macaamiisha shirkadda Takaful in maanta laga bilaabo adeegyada hospitaaladaasi ay halkan ka heli doonaan fiisaha iyo nidaamka xafiiska iyaga xaruntiisa Hargeysa. dokumentka iyo waraaqaha la dhigi doono xafiisyada kale ee shirkadu ku leedahay gobolada iyo wadamada injaarka nahay. adeegyada caafimaad oo dhameystiran laga bilaabo adeega booqashada ama bukaan socodka iyo qaliinada ilaa heerka qaliinada kansarka iyo daweynta kansarka oo dhammaantood ay bixiyaan. anagu Takaful ahaan mar walba waxaanu jecel lahay inaanu macaamiishayada u soo kordhino adeegyo cusub. adeegyadana waxaa ka mid ah in KBG Hospitals Group ama Healthcare Group ay ka mid noqdeen tiimamkan la shaqeyn doono iyo hospitaalada la shaqeyn doono. marka 26 hospitaal oo 4 wadan ku yaala ama laba qaaradood, qaaradda dunida ugu weyn ee Asia oo Malaysia xaruntu tahay iyo Australia intaba ay ka shaqeeyaan waa adeeg u soo kordhay macaamiisha Takaful. sidoo kale muwaadiniinta kale tagaya laakiin macaamiishayada ahayn waan u fudaydinaynaa siday u tagi lahaayeen. haddaba KBG maxay kaga duwan yihiin hospitaalada dibadda ee la shaqeyno? wadana badan oo kale la shaqeynaa dhowr arrin bay kaga duwan yihiin. waxay kaga duwan yihiin waxa kamida qofka passport Somali sita loogama baahna fiisa wuxuu ka qaadanayaa airportka. mushkiladii kama qabsanayso. muwaadiniinta kale Somaliland muwaadiniinta reer Soomaaliya, reer Djibouti, reer Ethiopia, reer Kenya iyo goobaha kale ee ka shaqeyno waxaan adeega aan ku heshiinay qodobada kamid ah in dadka airportka laga qaadi doono. markay ka dhoofaan airportka laga qaadaya, hospitaalka toos loo geynayaa, xanuunadoodii iyo waxay yihiin iyo dhakhtarka u baahan yihiin baa toos loogu hagaajinayaa. way ka baxayaan hebelow soo doon taxi airport baan ku lumay iyo wixii la mid ah. qofka marka gacantayada uu soo galo toos waxaan ugu wareejinaynaa oo ammaanada ah hospitaalkaasi markuu soo diro annaga inagu soo wareejinayaan. tusaale ahaan qofka Hargeysa ka baxaya markuu annaga gacantayada ku soo wareego ilaa inta la soo daweynayo wadawada Ilaahay baa bixiya, laakiin dhakhaatiirtaas ay wax ka qabanayaan maalinta Hargeysa ku soo noqdaan ay ehladiisu nagala wareegaysaa. marka waa adeeg dhameystiran. geesta kale waxaa munaasabadaasi hadalka qaatay Dr. Fosia oo ka socotay ururka dhakhaatiirta ee KBG waxaana si kooban uga sheekaysay heerarkii uu soo maray KBG waxaana intaas ku dartay waxyaabaha ay ku soo kordhin doonaan Somaliland. On behalf of KBG as the medical provider, we shall work together with Takaful Africa team in serving the Somalis to seek treatment in KBG hospitals. wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Somaliland Maxamed Axmed Maxamuud Cawad ayaa madashaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay maalgashiga ay ku sameeyeen wadanka shirkadda caymiska ee Takaful iyo ururka KBG. runtii waan kugu faanaynaa Somalilanders kalena waxaan leenahay kulli khibradda iyo aqoonta waa laynaga horeeyaa waynu hiigsanaynaa horumar kasta talaabo kasta Somaliland horumar bay u tahay. muwaadinka fiicanna waa ka dalkiisa mar walba u fikra. ugu dambeyntii waxaa halkaasi si rasmi ah heshiiskii ugu wada saxeexday shirkadda caymiska ee Takaful Horn of Africa iyo ururka dhakhaatiirta ee KBG waxaana isla goobtaasi xafiiska xadhiga kaga jiray wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Somaliland Axmed Nuur Ciise, telefishinka Bulsho, Hargeysa.